can affect anyone. Loneliness kelinimadu can affect way saameyn kartaa anyone cid kasta. Waxaan wanaagsan aamin kastoo idin tahay asxaabta way salaamay dhamaantiin ku soo dhawaada YouTube-keena Caalami Official. And I'm Beth. What's up, Beth? You look a little sad. Hadalkiisu wuxuu ku bilaabay I'm Neil anigu dheel baan ahay iyana waxay tiri I'm Beth ana Beth haddana Neil ayaa weydiiyey oo ku yidhi what's up see tahay and instead of saying most of time how are you halkan mar walba ka oran lahayd qof markaad English ku salaamayso how are you there are much more alternatives that you can say waxaa jira kuwo badan oo ah bedelka how are you oo aad oran karto sida what's up how life is treating you how you been marka mid ka mid ah salaamaha ayuu markaa ku salaamay oo ah what's up iska waran you look little sad waad yara murugaysan tahay marka look ma aha eegis ma aha laakiin waad u muuqataa weeye ka you look little sad waxaad u yara muuqataa inaad yara murugaysan tahay. Recently, I've been spending lots of time with my cat and houseplants, if you know what I mean. Waxay tiri, recently, beryahanba, I have been spending with a lot of time. Waxaan la qaadanaya waqti badan with my cat, bisatayda, and houseplant iyo gurigaan dhir dhigo. Marka houseplant waa dhir yar oo guriga la dhigo. If you know haddaad garanayso what I mean waxaan u jeedo. I'm feeling a bit lonely. It might help to know that you're not the only one feeling lonely. Gabadhii waxay tiri I'm feeling waxaan dareemayaa a bit xoogaa lonely kaliya ahaansho xoogaa kaliya ahaanshaan dareemayaa dan ninkii baa hadlay wuxuu yidhi it might help waxaa laga yaabaa inay ku caawiso to know inaad ogaato that you're not only inaanad hayn ka keliyaatee feeling dareemaysaa lonely kaliya ahaanshaha. More and more people report feeling lonely and unconnected to those they live close to. wuxuu yidhi ninkiina more and more people dad badan iyo dad badan report waxay ka warbixinayaan oo sheegayaan feeling inay dareemayaan lonely kali ahaansho unconnected iyo inaanay ku xidhnayn those kuway they live closely ay si dhow isula nool yihiin. Live closely waxaa laga wadaa dadka si dhow isula nool sida jaarka oo kale. Loneliness can affect anyone, and while everyone's experience of loneliness is different, hadalkeedii Beth waxay ku bilowday loneliness kelinimadu can affect way saameyn kartaa anyone cid kasta. Waxaa laga yaabaa inaad weydiiso loneliness iyo lonely maxay kala yihiin aan kuu sheego waxaa jirta wax loo yaqaan adjective noun oo ay kala yihiin magac iyo sifo. haddaadan ku raxdo kelinimo iyo keli ahaansho isku mid ma sheegayaan. mid waxa weeye waa xaaladii oo qofku uu ku jiray oo waa loneliness waa kelinimo waa xaaladii weeye. midna waa sifo oo adaa isku sifaynayo leh I'm feeling bit lonely waxaan dareemayaa xoogaa keli ahaansho. waad kala fahantay markaa jecelahay aan kasii socdo waxay tidhi olka everyone's experience qof kasta khibradiisa of loneliness ee ah kelinimadu is ay tahay different mid kala duwan. its effects can be serious. Research has shown that loneliness puts people at greater risk of many health issues. Gabadhii Beth iyadoo sii wada hadalkii waxay tidhi it is effects saameynteeda oo ay sheegaysa kelinimada saameynteedu can be waxay noqon kartaa serious mid halisa. Research bay tiri markaa baadhis ama baxsi la sameeyey has shown wuxuuna tusay that loneliness kelinimadaasi put people inay dadka geliso at greater risk khatar weyn ay geliso oo of many health issues ah dhibaatooyin badan oo caafimaad ay geliso kelinimadaasi. muuqaalka intaasuu ku egyahay uu dheeraaday. assalaamu calaykum asxaabta qaybtiisa labaad halala socdo asxaabta.